wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland una wehelnayaan wasiir ku-xigeenka ganacsiga xildhibaano iyo guddida horumarinta wadooyinka Somaliland ayaa soo gaadhay magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daadmareed. Socdaalkan wafdiga oo ku saleysna kuurgalida wadada dhismaheedu socda isku xidhaysa gobolada Daadmareed, Togdheer iyo Maroodijeex ayaa waxa ay kulamo kula qaateen xarunta dawladda hoose, maamulka gobolka, kan degmada, salaadiin, cuqaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Oodweyne. waxaana halka wafdiga kala hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdixakiin Nuur Muuse iyo gudoomiyaha gobolka Daadmareed Jamaal Sheekh Xuseen Hurre kuwaasoo wafdiga ku soo dhaweeyay magaalada Oodweyne. waxaana hadaladoodii kamid ahaa Allah hawlo badan ka hayay burco adana go'aansaday inaad la hadashid shacabka reer Oodweyne. waxaan ku soo dhaweynayaa gobolka degmadaba farkan saas oo runtii anaguna aanu muddada dheer aanu dadaalkeeda ku jirnay oo aanu dhinacayaga aanu isku daynay in aanu ka qayb qaadano. wasiirka madaxtooyada Xirsi Xaaji Xasan, wasiir ku-xigeenka ganacsiga Bashiir Cabdi Xariir iyo xildhibaan Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeyo oo iyaguna ugu dambeyntii hadalka qaatay ayaa ka waramay safarkoodan iyo wuxuu ku qatomo. mas'uuliyiintii horeysay baa sheegay socdaalkii wuxuu ahaa in wadadii xaaladeedii uu ku urgalo sidoo kalena dardar gelino sidii wadada u sii soconay hawsheedu. wadada Oodweyne maaha markii koowaad aynu isugu nimaadno, waxaan marar badan ku kulannay sidii waxa weeye wadadan loo dhameystiri lahaa, hawsheeda loo geli lahaa. qaranka dhisay isku xidhaysay degmada Oodweyne dhinaca Burcana ku xidhaysay, dhinaca Hargeysa ku xidhaysay halka ay marayso in la soo xog wareystay ay waftiga madaxweynuhu u soo diray. waftigana waxa hogaaminayay saarkiisa wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan, xildhibaan Maxamed Xaaji Yuusuf iyo anigu ka koobanahay. waxa waftigu ka kooban yahay guddidii horumarinta gobolka ayaa socota, injineeradii wadada xagga Burca ka soo waday baa nala socda, suldaankii odayaashii kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gobolka iyo dadka reer Oodweyne oo dadaal badan ka sameeyay xoolo ururintii oo golaha deegaanku kamid aha oo salaadiintu kamid ahayd oo dhammaan tuulooyinka iyo gobolku aad isugu xil saareen. waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa run ahaantii la ismacaasiyo golaha deegaanka imika Oodweyne. haddaba intii lagu guda jiray kulankaasi ayaa xildhibaan maxoo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Oodweyne mas'uuliyiinta ka codsaday inuu halka kala hadlo bulshada, hase ahaatee loo diiday inuu halka ka hadlo. waxaana buuq iyo sawaxan fara badan uu ka dhashay goobtii uu kulankaasu ka socday. intaasi kadib bulshada magaalada Oodweyne oo aad u gadoodsanaya mudaharaad ballaaran ka dhigay goobtii uu kulankaasu ka socday. waxaana ciidamada sida gaarka ay u tababaran ee loo yaqaan RRU-da ay xoogooda ku muquuriyeen dadweynihii sameynayay mudaharaadka, halkaasoo dad badanna jeelka loo taxaabay. maamulaha cisbitaalka guud ee magaalada Oodweyne oo wax ka weydiinay rabshadan ka dhacday magaalada Oodweyne ayaa noo xaqiijiyay inuu ilaa hadda uu maraya 5 qof, mid ka midna aad u culus yahay isla markaana uu ku jira saldhigga. qalanqal yar baa ka dhacay Oodweyne soo bilaabana garan maayo, laakiin waxa la keenay ilaa imika 4 qof oo dhaawacyo aad u fudud qaba oo ay dhiga badan yihiin iyo ku fitaan xalaankaasa kuwaas oo aan dib u celiyay. mid ka mid ah shacabkii mudaharaaday iyo xildhibaankiisa waxankan iyo buuqa badani ka dhashay oo iyagana wax ka weydiinay ayaa nooga waramay bal sida ay wax u dhaceen. dawladda hore waxa ku dhacday udub ila soo dadka nacsiyo in kala xirsi iyo xaaji wada nacsiya magaas hayse wax u dhaceen niman baad laga soo yaacay wax qabto inta hadal ilaahay xildhibaan baa si hadal kowde xildhibaanku wuxuu wax la wada amsi xildhibaanku la fadhiisay meesha waa cabdullah hada xildhibaanku hadlay daayay. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حلبان إبراهيم محمد نور نرقية معناتها وإنه يمادين وسيرك مدحتوية يوفتو هجامين مجال أودويني أي كشيء حالدي أمام الحالدي وددوا أي مريسي مركزا أنا حلبان هذا معي أنا الله وعن كل ورا كلمة أنا أراها ما هذا الكتاب اللي يقولي إن بشير عبد الحريري وأبي وحلبان قولها ديان كلمة دي سوينا الصينينا حرسي مركي وديبين حرسي مركي وهذا الكيد مي أيام كوري مدن وسير واحد دون إياه إن كلمة ذي شيء وحول ميل قارا يقول ديان كان خاكر مينا بولشلا نظارته وحوش جايين أنا وحنا واحين حلو أنا ذي أي بولشلا نظارتي
kelmadeedii markii la diiday xirsaafkiisa wuxuu igaga yidhi hal xil xildhibaankan xaaladda magaalada Oodweyne ayaa haatan degan Layla Careef Maxamed muuqbaahiyaha aragga fogey Hon Cable TV magaalada Oodweyne